saaxiib macallin qof ku dhow haddii ay dhici karto inaad su'aal garan weyso waxaa kaloo leedahay fursad ah in su'aalaha maadaama ay noqon doonaan kuwa doorasho ah aynu kuu soo gaabino oo aan laba kaa tuurno mar kale aan ku celinayaa fursaddaas hal mar hadday ku dhaafto mar dambe ma lihid intii barnaamijka waxaan umaleynaya inaad fahamsan tahay intaas kadib si guud barnaamijku wuxuu noqon doonaa su'aalo isugu jira culumta guud taariikhda dhaqanka dhaqaalaha cayaaraha waxaan is leeyahay wax badan ayaa soo koobtay nin dhallinyaro tahay oo ku faraxsanahay inaan ka qayb galo barnaamijkan hore barnaamij noocan ma ku qayb gashay waan ka qayb galay laakiin tartan wuxuu ahay oo iskuulaadka waxaan ku rajeynayaa inaad ku guuleysatid oo aad heshid waxay ku filan tahay lacagta ciidda way ka badan tahay weliba guulaan ku rajeynayaa su-aasha ugu horeysa waxay leedahay sheeg magacii hore ee loo yaqiinay magaalada Boosaaso magacii ugu hore ee loo yaqiinay Boosaaso wuxuu ahaa A Bandar Qaasim B Bari C Bandar Bayla D Bandar Saalax okay hore ma tagtay Boosaaso may weli magaalada ma ka bixin xamarka ma tagtay waxaan filaa laakiin aqoontaada guud inay leedahay okay horta B D su'aalahan kuma jiraan laakiin A iyo C aan umaleynaa su-aasha ugu horreysay noqon waaye su-aalaha gadaal ayay ka soo adkaan doonaan sida ay ka muuqato mararka qaar waa lagu nasiibsadaa okay waa fahansanahay AEC labadaas midkood waa laakiin ogtahay in su-aasha hal jawaab oo saxan ay kaliya leedahay okay waa fahansanahay labadaas ay noqon kartaa sidaas kugu leedahay welina aan ku xasuusiyo doorashada qof inaa wacatid inaan labada ka aan mid ka tuuro way ku banaan tahay qof wacana su-aasha ugu horreysay qof wacanaysaa I think labadana shaki ka qaba AEC isku egyihiin qofaan ku wacay markaas qofka wacanayso magaciisa Hidaaya Nuur walaashay walaasha waa ku kalsoon tahay inay ku jawaabayso telefonkeeda hidaayaan wacaynaa maxamed nuur wuxuu go'aansaday in aan u wacno walaashiis hidaaya waxaan break ayaan geli doonaa waxaan u wacaynaa hidaaya Anticipation, that stressful feeling you get when the jinx called the Nellies enters your mindset. Here is some Driftwell to help calm your nerves, to quiet the Nellies so you can fill your reserves. With Driftwell, sip into relaxation. Hello, assalamu alaikum. Alaikum salam. Waxaa kula hadlaya Cabbaas waxaa ila jooga Maxamed Nuur. Maxamed Nuur wuxuu rabaa inaad ka caawisid su'aal aynu weydiinay waan ku dhiibi doonaa waxaa haysataa markaan la hadashid 30 second markuu su'aasha ku weydiiyo qofkii la hadlayo waa Hidaaya Soma ay Hidaaya la hadal Maxamed Hello Hidaaya
waxaan ku weydiinayaa magacii hore ee loo yaqiinay Boosaaso. Waqtiga ugu socdo. Hello. magacii hore ee loo yaqiin jiray Boosaaso. Ha. waa Axmed alle haw waa ka dhamaatay waa mahadsan tahay soddonkii second waa kaa dhamaaday jawaabi ku sheegtay ma jirta hadda labadan doorasho mid ka rabtaa inaad aada dooratay niyadda deji waxaa laga yaabaa midda saxan inaad maskaxda ku haysid ku kalsoon tahay jawaabtada kugu dambeysa waa aan eegno inay tahay su-aasha jawaabta aa ka bixisay inay tahay mid sax ambali su-aashan waa su-aasha kugu horeysay runtii waxaa kaa dhamaatay hal option oo aa haysatay doorashadii koowaad oo ah inaad qof wacan karto hadda qof kale ma wacan kartid laakiin nasiibkaaga su-aasha labaad ayuu ku gaarsiiyey maadaama magaalada hore u tegina waxaan isleeyahay si fiican maadan labadan isku kaheno AEC waa dareemaya su-aasha jawaabteeda waa sax waxaan u gudbi doonaa su-aasha labaad su-aasha labaad diyaar muu tahay su-aasha labaad waa sugaan fanka iyo sugaanta ayadana si fiican inaad u taqaana rajeynaya iskuma fiicnin laakiin nasiibkayga tijaabina maadooyin kale oo aad ugu fiican tahay jira soo ma ayagana waa imaan doonaan haddii aad gaartid My name is Marvin Korn. I will be your new coach. You're all used to being coddled. Well, now you'll get unused to it. This is gabayga xiin faniin waxaa tiriyey abwaan qamaan bulxan yuusuf b cali dhuux aadan c sayid maxamed cabdulle xasan c d salaan carabey gabaygan xiin faniin loo yaqaano waxaa tiriyey abwaan qamaan bulxan b cali dhuux aadan c sayid maxamed cabdulle xasan d salaan carabey okay gabaygan weli ma arkin intaas oo dhiganay wax laakiin xiin faniin aan la yidhahdo way ugu cusub yahay laakiin fursadeeda kala tijaabina fursadda kale oo haysatid waana su-aashaadii labaad ogaw fahansane gabay iskuma fiicnin waxaa laga yaabaa inay fursadda kale haddaad tijaabiso inay kuwa kale isaan ka fududaadaan waxaan kaa tuuri doonaa labo hadda waxaa haysataa laba option kuwaas oo ah qamaan bulxan c sayid maxamed cabdulle xasan jawaabtaada ugu dambeysa miya rajo inaad ka laabatay kugu jirto aad b dheheyso ama c leedahay gabayga xiin faniin waxaa tiriyay abwaan qamaan bulxan yuusuf aan eegno inay tahay jawaabta saxda ah aadana wuxuu mahay maxamed nuur jawaabta saxda
ma aha qamaan bulxan waa sayid maxamed cabdulla xasan waxaan ku rajeynayaa inaad tartanka aad fursad kaleeto aa heli doontid runtii su-aalaha sidaa sheegtay kuwii aad isku fiicneen ayay ku bilowdeen waa mararka qaar waa nasiibka waxaan ku rajeyn doonaa sanado kaleeto inaad barnaamijka nagala qayb geshid insha Allah waa rajeynaa in insha Allah sanad dambe aan ka qayb gali doono waa maasantahay maxamed sida fiican oo nagala soo qayb gashay waa ugu mahadcelinayaa saaxiibayaal waxaan ka xunnahay in maxamed nuur uu saacidi waayey nasiibka taas oo ah inuu helo $100 ugu horeysa oo ah ammaanka waxaan u yeeri doonaa markan tartamaaga labaad ee barnaamijka sida aad daawanaysanba maxamed nuur waa u suurtageli weysay inuu gaaro qaybta koowaad ee ah 5 su'aal ugu horeysa taas oo lagu talagalay inay lagu helo abaalmarinta $100 haddii uu